Assalaamu calaykum kusoo dhawow muuqaal cusub aan ka hadli doono maanta qaybta gudaha ee baabuurka waana qaybta calaamadaha gulubyada cascas bixinaya hadii jeer ee digniinta ee kasoo muuqda dashboardka ama dashboardka haddaba calaamadahan haddii aad aragto gulubyo cascas oo kasoo muuqanaya dashboardka gaariga hadii jeer waxay u badan tahay in uu muujinayo digniin ama digniin waxyeello gaariga ku sugan yahay ama mid soo socota hadii jeer saacadda tan waa saacadda tachyometer RPM ayaa macnaheedu tahay revolution per minute oo ah saacadda leewar qaadashada ee gaariga haddaba saacaddan ayaa lambaradeeda waxay u dhexeeyaan eber ilaa 8 markasta oo leewarka qabatana saacaddu kor ayay u kici doontaa haddaba saddex lambar ee calaamadda xas ku jira iyagu 6, 7 iyo 8 ayaa ah inaanad halka gaarsiin waa laga limit gareeyay wax lagu halkaas gaarsiin asla saacadani xag hoose ay iyaduna ka sii taala waana saacadda temperature-ka xaraaradda heerkulka sheegto iyaduna haddii xarafka h ay saac ay u dhawaato saacadaadu ama xariiqda yar dheer u dhawaato macnaheedu wax weyn gaarigu kululaaday taas ay sababteeduna ay sababi karto biyo la'aan gaariga ku timaada waxaan ku soo dhigi doonaa calaamadda yar ee gafeedha ee aday jeer qiiq yarna ka baxayo taasoo macnaheedu tahay gaarigu aad ayuu kululaaday xaraaradiisuna ay sareysaa calaamadahana inaan kala barano ayaa muhiima sida tan saddexdan calaamadood waayahay waa calaamadan ijiinka ayaa wax qaba ay sheegaysaa tanna biitriga ayaa wax qaba isla calaamadda dhexdoona waxay sheegaysaa tire pressure-ka ama low naqaska taayirada ayaa waayahay isla shantan calaamadood calaamadan saliidda ayay ka hadlaysaa tanna waxay ka hadlaysaa naqaska taayirada tanna waxay ka hadlaysaa brake system-ka tanna waxay ka hadlaysaa beelka tanna waxay ka hadlaysaa fuel-ka ama batroolka kuwana waa calaamado kale oo digniin ah iyaduna loo baahanyay in laga taxadiro hadii jeer waayahay calaamadan ugu horeysa ee dhaqaaqaysa waa leedhka hore ayaa wax qaba tanna waa saacadda ayaa wax qabta tanna waa weberta ayaa wax qabta isla saddexdan calaamadood iyaduna aynu eegno calaamadan daaqadaha ayaa kuu furan calaamadan beelka ayaan ku xidhnay isla calaamadaasna gaarigaaga steeringiisa ayaa wax ka khaldayin calaamadahan waa kuwa iyagu geerka hadii jeer ama speedka kuu tilmaamaya kolba lambarka aad joogto ama geerka aad joogto geer B oo ah parking geerka R oo ah reverse inuu dib u baxso macnaheedu geerka N oo ah neutral dhexdhexaad iyo geerka D oo ah drive oo hore u kaxay waa tahay waxaana soo socotay saacadda speedka speedometer-ka oo macnaheedu tahay waa saacadda speedka kuu sheegtay gaariga intuu ku socdo hadii jeer saacaddan gaariga waxaan odhan karnaa waa 140 ama 140 oo macnaheedu tahay 140 kilomitir ayuu jaraa saacadiiba beer hanwar baabuurtuna waa say u badan tahay hadii jeer 180 ayuu badin baabuurtu laakiin way jira qaar 140 qaar 200 qaar 300 qaar 400 qaar 500 ilaa qaar 5000 gaadha way jiraan kuwa sida kuwa tartamada kale race-ka lagu galo tartamadii waxyaabo noocaas ah isla saacaddan dhinaca bidix ka muuqata waa saacadda fuel-ka ama batroolka ama naftadaba hadii jeer ku tilmaamaysa heerka ay marayso haddii ay xagga F u dhawaato saacadaadu macnaheedu wax waa full laakiin haddii ay xagga empty u dhawaato casaankana ay sii dhawaato macnaheedu wax weeyaan batrool baad u baahan inaad ku shubto ama naftad u baahan inaad ku shubto gaarigaaga haddaba daawada mar kasta inaad la socoto saacadaha gaariga dashka warka ama dashboard-ka soo muuqanaya waa muhiim isla saacaddan waa saacadda sheegaysa inta kiiloomitir oo gaarigaaga socday ilaa maalinkuu soo degay ilaa maalinka maanta ilaa haddii aan la siiro garin weeyaan isla gaarigan wuxuu socday iminka 8860 kiiloomitir ayuu socday haddaba markii aad gaari iibsanayso waa inaad eegto waxa muhiim ah inaad eegto saacadda kiiloomitirka sheegaysa intuu socday gaarigu ilaa maanta soo iibiyo daawada aad ay u badan yihiin saacadaha ama gulubyada hadii jeer inta badan digniinta ka hadlaya ee kasoo muuqda dashka warka ama dashboardka gaariga wixii dheeraada waxaan ka hadli doonaa fiidiyoda insha Allah hadiiba ay ku qancisay mid kamid ah aad waxna ka fahamtay insha Allah waxaad commentiga noogu reebi doontaa faalada hana hilmaamin subscribe-ta gambaleelka iyo waliba tana like-ta
iyo comment.